soo saaxiibayaal waa lagu kala baxay kulankii London Derby ee u dhexeeyay kooxaha Arsenal iyo Chelsea. markii la kulankan micno gooni ayuu u lahaa kooxda Arsenal oo dooneysay inay u dhawaato hoggaanka inkastoo dhibco badan laga saray Liverpool, laakiin Gunners mar kale taaka ayaa loo dhigay kooxda Chelsea. waxaa la xasuustaa kulankii kan ka horeeyay la ciyaartay Manchester iyaduna barbaro sidan oo kale inay soo gashay. mar kalena sidii ayaa ku dhacday caawa Chelsea garoonkooda iyagoo jooga ay barbaro la galeen kooxda Arsenal. taa oo ka dhigan Gunners in aysan weli u dhawaanin dhibcaha kooxda hoggaanka haysta Liverpool, halka Chelsea inay weli soo taagsanayso in shanta ugu horeysa aysan hoos uga dhicin. kulanka markii la eego labada macallin waxay sheegteen awoodahooda iyo waxyaabahooda ugu muhiimsan, waxayna la soo shirtigeen ciyaartooydooda muhiimka ah Odegaard oo garoomada dib ugu soo laabtay. Martinelli gool u dhaliyay, Neto ayaa ka diiday goolka barbaraha dhaliyay taa oo la karo xidigan Portugiiska ah mid ka mid ah goolashiisii iyo kulankiisii weynaha ayuu shabaqa dhigay. Enzo Maresca ayuuna ka farxiyay. taageerayaasha Arsenal kuma qanacsana sheekadan. waxaa la xasuustaa maanta Thierry Henry inuu sheegay in kooxda Arsenal haddii barbaro la gasho ama ay ka badin weyso Chelsea in dhibcaheeda horyaalka tartanka hamiga ay ka leedahay oo sanadkan sii socon doonin. waa sida uu sheegay Henry, inkastoo Arteta ka jawaabay sheekadaas uu yidhi si walba oo dhibcaan u lumino weli tartankeena horyaalka uu furan yahay. tan waxay la micno tahay Liverpool in fursad weyn u tahay 5 dhibcood inay ka sareeyaan kooxda kubadda cagta Manchester City, 9 dhibcoodna xilligan ka sareeyaan kooxda Arsenal. waana mid ka mid ah waxyaabaha Liverpool caawa iyagu ay fursad ugu ahayd kulankan inuu bareejo kusoo dhamaado. Arsenal wax walba ayay sameysay, fursad walba ay ku dadaashay gool ku keeni karto, laakiin difaaca adag ee Chelsea iyo derbiga ah ayaa diiday sheekadaasi.